السلام عليكم سوري بعد صاحب بيال وحن هاي إبراهيم آدم وحن مقالكن كوغلو وداقي دونا قيبتي لبعض ايربورت وارسكا وحن هوريو سو قادناي ديباجركا بس قيبتن وحن كوبالاناي إنا نكو سو قدبين دونو إرايضا أد أباهن دونتو إن أد استعماشو مركي أد إماتو أما أد ديارتك سو ديغتو قيبتني وحن نقوم دونتا قيبتي أن كو شيغناي arrival ama imaansho maqalkeeni ugu dambeeyay waxaanu joognay anagoo diyaaradii soo raacnay yani diyaaradii take off soo noqotay crewga diyaaradana ay noo sheegeen fasten your seat belt ama inaad suunkaaga xirato okay markani waxaan soo gaarnay dhamaadkii safarkeena haddaba markii aad soo gaarto destinationkii ama wadankii ama magaaladii aad u soo socotay diyaaraddu waxay sameyn doontaa wax loo yaqaano landing haddaba waa ereyga labaad ereyga koowaad wuxuu noqon doonaa destination waxaad baratay destination oo ah goobta aad u socoto yani meesha goolkaaga u socoto waxay noqonaysaa destination so ereygaasi haddaadan horay u aqoonin hadda diiwaan gasho destination waa halkaad u socoto yani waa goobta destinationkaaga aad u socoto ereyga labaad ee aad muuqaalkan ku baran doonto marka wuxuu noqon doonaa landing waa markii diyaaradda caga dhiganayso yani landing we going to land by 9:30 our landing time is 3:30 yani waqtiga diyaaraddeenu degi doonto waa 3:30 oo kale ama 9:30 oo kale so landing waa degashada diyaaradda markay soo landing garayso waxay ku degi doontaa wax loo yaqaano runway so runway waa halka ay diyaaradda ku cararto markay kacayso iyo markay degayso yani aviation ma tihid oo maaragtay runwayga taxiway oo ah halka ay diyaaradda ku soconayso aad iska diiwaan gasho yani waa ereyo English ah oo hadhowtii aad u baahan karto laakiin mostly hadda ereyadan runwayga taxiway ramp ama flight line yani waa aviation is about aviation waxa weeyaan yani cilmiga ku saabsan diyaaradaha oo kale yani airportska waxa jira wax la yiraahdo aviation management yani waa maamulka garoonka iyo diyaaradaha oo kale markii diyaaradda soo landing waa ereyga labaad baratay runway ereyga saddexaad ahaan u diiwaan gasho runway ereyga afraad waxaad diiwaan gashataa taxiway waa halka ay diyaaradda ku socoto markii ay maaragtay u soo socoto parkingka ama flight line waxa la yiraahdo asagana ereygaasna waxaad u diiwaan gashataa ereyga shanaad so halkaasi markaad joogto waxaad kasoo degi doontaa diyaaradda waxaad soo geli doontaa terminalkii markaad terminalka sidaas u soo gasho oo aad international arrival aad tahay waxaa ku soo bixi doonta laba meelood arrivals oo ah haddii aad magaaladan ku eg tahay waxaad soo qaadan doontaa qaybta arrivalka ama haddii aadan magaalada ku ekeen oo kale for example aad transit tahay transit ereygaaga lixaad ahaan u diiwaan gasho waxaad qaadan doontaa calaamada transfer yani waxaa soo bixi doona arrivals iyo transfer so transferka waxaad qaadan doontaa haddii aad tahay transit oo aad u socoto wadan kaleeto so transferka haddii aad qaadato waxaad si toos u aadi doontaa gateka ay diyaaradaada kaleeto ay ka bixayso oo kale so laakiin anaga hadda waxaan qaadan doonaa arrivals oo waxaan nahay arrival so arrivalka markaad soo qaadato ereygan arrival hore ayaad u soo qaadatay haddii baan gashanin so waa in aad xasuusnaataa erey kasta oo aad ku qaadato muuqaaladan aan soo saari doono markaad arrivalka soo gasho waxaad aadisi toos u aadi doontaa wax la yiraahdo passport control oo ah mid aan hore ayadana u soo qaadanay so passport controlka waa immigrationka waa halka lagaaga controli doono baasaboorkaaga iyo fiisahaaga iyo sababta aad yani wadankaas ama magaaladaasi aad u tagayso markii aad kasoo dhammaato passport controlka waxaa si toos u aadi doontaa ama aad raadin doontaa calaamada ay ku qoran tahay baggage claim ama baggage reclaim waa halka aad ka qaadan doonto boorsadaadii ama boorsooyinkaagii so ereyga cusub ee kale maanta aan baranay wuxuu noqon doonaa baggage reclaim so marka meelaha boorsooyinka laga qaadanayo way badan yihiin oo kale yani sidoo ayaga laftirkooda wax geed ayay leeyihiin waa dhowr meelood oo boorsooyinka laga qaato marka waxaad ka arki kartaa shaashada ay leeyihiin shaashadaas ay inta badan laga fiiriyaa halka aad ka qaadan doonto boorsadaada so boorsadaada markii aad qaadato exitka ayaad qaadan doontaa yani exit horeyna waa u taqaanaa laga yaaba so exitka oo halkii aad oga bixi lahayd garoonka kadib markii aad exitka qaadato waxaa si toos u aadi doontaa taxi parkingka haddii gaari uu ku yaalay iyo haddii taxi aad qaadan doontidba so arrivalka uu iska fudud yahay ereyada arrivalka aan ku baranaynin waxaa ka mid ahaa landing oo ahaa markii ay diyaaradda soo deganaysay runway oo ah halkii ay diyaaradda ku ordaysay taxiway oo ah asagana halkii ay diyaaradii ku soconaysay markii ay maaragtay ay imaan doonto meesha loo yaqaano flight line ama ramp oo ah halka ay diyaaradda soo istaagi doonto ama lagu baakimi doono sidoo kaleeto markaad soo geshid terminalka transfer iyo wuxuu kala bixi doonaa arrivals transfer waa halka ay aadi doonaan dadka transitka ah arrivalkana waa qaybta aad adiga soo geli lahayd markii aad magaaladaas u socoto oo kaleeto kadibna passport controlka soo maraysa kadibna waxaad soo aadi doontaa baggage reclaim
waa asagana ah erey cusub oo hadeer aan baranay. Haddii for example passport control markaa kasoo tagto oo kale waxaad weysay package reclaim oo kale qof ayaad weydiin kartaa, waxaad dhihi kartaa please can you guide me to the package reclaim area. So wax iska fudud waaye. Waxaan rajaynayaa in aad muuqaalkan ereyo cusub aad ka faa'iiday. Insha Allah sidan ayaan ku wadi doonaa isbuuci ilaa 2 muuqaal oo aan ereyo cusub aan maaragtay idinkugu soo gudbinayo ayaan soo sameyn doonaa. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad kanaalka ku soo biirto ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah aad la wadaagto. Assalaamu calaykum.